loo dhahaa nin acraabiya ayaa nebiga u yimidaa la yidhi aad qamba u haysa. rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa tuhuuru in shaa allah. acraabigii wuxuu dhahay la ma ahanoo dhahay balse waa xuma qanda karkarinaysa oo dhib badan oo mashaakil leh oo odayga u jiidaysa qabriga. ilahay ha kaaga dhiga buu dhahay nebiga, ka gadaal waa dhintay. laa ba'sa tuhuuru in shaa allah. taasaa markaa loo dhahaa. waxaad kaloo dhahaysaa as'alu allaha alcadiima rab alcarshi alcadiim an yashfiika 7 maraat. 7 mar dheh as'alu allaha. ilaahay baan su'aalayaa ilaahi alcadiima weynaa wax ka weynna uusan jirin rab alcarshi alcadiimi carshiga cadiimkaa rabbigiisa ah an yashfiyaka inuu markaa ku shaafiyo 7 maraatin. 7 mar saas ugu ducey kana soo tag fadlu ciyaadati almariid. booqashada dadka jira lasoo booqdo fadliga ay leedahay. qaal sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa caada arajulu rajulku hadduu booqdo waa ninka gabarna waa lamida akhaahu almuslima walaalkiis muslima mashaa wuxuu ku socdaa fii khiraafati ljannati jannada khiraafadeeda goosashada midhaha jannaduu ku dhex socdaa xataa yajlisa ilaa uu ka fadhiisto. faidaa jalasa markuu fadhiisto oo ninkii uu soo booqday ama qofkuu soo booqday ay jirin ag fadhiisto ama isbitaalku ugu tegey ama guriga waa isku midee hamarathu raxmatu naxariistaa tiibisoo daboosha. fain kaana qudwatan hadday subax tahay sallaa calayhi waxaa u ducaynaysa qofka wax soo booqday 70,000 malakin 70,000 oo malag xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysto. wain kaana masaa'an hadday galab tahay sallaa calayhi 70,000 malakin 70,000 oo malaga u ducaynaysa xataa yusbixa ilaa uu ka subxaysto. ducaau almariidi ninka mariidkaa ducada loogu duceeye alladii mariidkaasoo ya'sa min xayaatihi xayaatadiisa laga quustay. ninkan waa nin aad iyo aad u dhib badan. maca daalika wuxuu saaran yahay xaaladii ugu dambaysay xayaatadiisaa laga quustay. allahuma macnaha ducaau lmariid mariidka ducadiisa dheh oo isugu duceeye alladii mariidkaasoo ya'sa min xayaatihi noloshiisa ka quustay. asagaa isugu ducaynaya. haddaad is ogaato inaad sii socoto dheh allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso waalxiqnii ii haleelsii oo waxaad ii waafajisaa birafiiqi alaclaa rafiiqa sare. rafiiqa sare markaa igey sidaa ayuu ku ducaysanaa qofka. mala xasuusta maanta allahuma kfir lii booskeeda ilaahayow xoolahaygii waayo warxamnii booskeeda geelaygii aaway waayo waalxiqnii birafiiqi laclaa maba jirtada. sidaa darteed waxaa la rabaa qofka bacdamaa uu ilaahay agtiisa u sii socdo noloshii adduunkana uu ka quustay inuu ducadaa fiican ugu ducaysto, waayo qabriga dembi dhaaf iyo naxariis ayaa ku anfacaya. jacala nabiy nebigu wuxuu yeelay sala allahu calayhi wasalam ama uu guro galay dheh cinda mowtihi geeridiisa agteeda yudkhilu inuu gelinayo yadayhi gacmihiisa fi lmaa'i biyaha oo fayamsaxu uu ku masaxayo bihimaa labadii gacmood wajhahu wejigiisa oo wayaquulu uu dhahayo laa ilaaha ila allahu ina lilmowti lasakaraatin. laa ilaaha ila allah ilaahay alla wax xaqnimo lagu caabudo oo koonka ka jira ma jira ila allahu ilaahay maahana ina lilmowti meydka iyo dhimashada la sakaraatin sakaraat ayuu wataa xanuun badan. laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar. ilaahay meehe ilaah kale ma jira. ilaahay ayaa weyn. laa ilaaha ila allahu waxdahu laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allahu lahu lmulku walahu alxamdu laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billahi. sidaana qofku markaa waa dhahaya talqiinu lmuxtadir qofka muxtadirka ee lagu soo xaadiray wixii loo laqini lahaa. muxtadirka waa qofka marka sakaraadka uu soo gaaro wixii markaa lagu samayn lahaa. yaasiinka caaway ayaa la yidhaahdaa maanta, balse wax baatida oo sugan ma aha. waxa anfacaya ma aha yaasiinkoo lagu akriyo, laakiin man kaana aakhiru kalaamihi kalaamkiisa ugu dambeeya qofkuu noqdo laa ilaaha ila allahu dakhala aljannata jannada ilaahay ayuu gelayaa. man kaana aakhiru kalaamihi kalaamkiisa midka ugu dambeeya qofkuu ahaada laa ilaaha ila allahda nafta uga baxdo dakhala aljannata jannada ilaahay ayuu gelayaa. sidaa darteed haddaan la yaasiiminin neef baktiyin waaye iyo haddaan la yaasiiminin fadli ma yeesho iyo kulli waa kalaam aan waxba ka jirin waaye. wax sugan oo saabida maaha. axaadiiso daciifa ayaa ku soo arooray qofka marka uu dhimanayo in la yaasiimiyo. nebiga sala allahu calayhi wasalam weligiis kama dhicin mana la warinin axad saxaabada kamida oo dhimanayo yaasiin ku akhriyey. khadiija binti khuwaylad ayaa dhimatoo xaaskiisa ma yaasiiminin nebiga.
sidaa darteed ayaa abi salama uu u soo galay, indhaha ayuu u daboolay sida noo imaan doonta. ducadii hadda aan soo tilmaamay ayuu ku akriyay, yaasiin kuma akrinin. adeerkiis abi taalib markuu dhimina, yaa cami qul laa ilaaha ila allah dhehbuu dhacay, idaa ku anfacayse ma yaasiininin. marka wax sugan maba ahanba. man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna, jannada ayuu gelaa. yaasiinkii lama saarinaad maqlaysaa wuu dhintay, neef baktiye waay, waa waxaan waxba ka jirin. ducaau man usiiba bimusiibatin, qofkii musiibo ay asiibto wixii uu ku ducaysan lahaa, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. sidaa dheh, allaahuma ujurnii, ilaahu iga ajirsii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minhaa, khayrna iigu bedel. musiibada waxay ahaataba, beertaadii baa gudatay, gurigaagii ayaa gubtay, qof ayaa kaa dhintay, walaalkaa aa dhintay, inna lilah wa inna ilayhi raajicuun. walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wannaqsi min alamwaal waalanfusi waaltamaraat. intaasaa laydinku imtixaamaa. wabashiri saabiriin, saabiriinta u bishaaray. saabiriin way yihiin waa kuwa wuu yidhi ilaahay, idaa asaabatkum musiiba qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. allahuma ujurnii fii musiibatii, musiibadan igu dhacday ajirkeeda allah isii, wa akhlif lii khayran minhaa, midka khayr badanna iigu bedel. kan waara tegaye koo ka fiican oo ka khayr badan ilaahayo markaa iigu bedel. baasaa markaa la rabaa. balse musiibadu mar allaala markay cusub tahayaa la rabaa. markaad ooyso oo meel kasta aad dhacdo oo qof kasta aad u tartado wax qaban weyso, tabar ay koreyso, alxamdu lilah inna lilahi qofkaa yeelaysa male. nebigu wuxuu soo maray naag qabri agteeda ku ooynaysa, markaasuu dhahay iska sabir ee meesha ka tag. sidii yaraa ka dhintaa qabriga ku jiray. ilayka cani bay tiri, iga dhaqaaqay tiri, kuguma dhicin musiibadii igu dhacday. hadday kugu dhicleed addooma sabri lahaynay ka wadaa. maogeen inuu nebigu yahay. caliyaa la socdoo lugta gadaal u dhigay oo yidhi war nebiga waa qofkaad la hadlayso. way soo oroday guriga nebigay timid, albaabkiisa waardiyaala ma joogin sala allahu calayhi wasalam. intay u tagtay tiri yaa rasuul haddaan sabra. nebigu wuxuu dhahay asabru cinda sudmati aluula, hadda ma lagaa rabo. hadaayay ahayd musiibada markii qoyintaa la rabaa, laakiin markaad soo oomin bogatay waxna aad soo celinaysay, haddaa sabra qofkaa yeelaysa male, ajarna markaa ma laha. adducaau cinda igmaadi lmayiti, maydka marka loo indhalaabayo wixii loogu ducayn lahaa. nebiga abi salama u soo galay, allahuma kfir li fulaan, biismihi magaciisa sheeg. ila nebiga yidhi allahuma kfir li abi salama. saasoo markaa dhaa warfac darajatahu, darajadiisa kor ugu qaad fi lmahdiyiin, wa akhlifhu fii caqibihi fi lgaabiriin, dadka ka hara ee gadaashiisa eribtiisana khayr ugu bedel. waqfir lana, ilaahu anaga noo dembi dhaaf, iyo walahu asagaba, yaa raba alcaalamiina. wafsax lahu fii qabrihi, qabrigiisa u waasici, wanawir lahu, u iftiimi fiihi, qabriga dhexdiisa. intaasaa la dhahaa. meydka dhahana waa loo laabaa. adducaau lilmayiti fi salaati calayhi, marka meydka lagu tukanayo salaada wixii markaa loogu ducayn lahaa. salaada waa 4 takbiiro. takbiirta koowaad faatixadaa lagu akhriyaa. takbiirta labaad ayadoo la taagan yahay nebigaa lagu salliyaa. takbiirta saddexaad meydkaa loogu duceeyaa. waxaad dhahaysaa allahuma kfir lahu, ilaahu u dembi dhaaf, warxamhu, una naxariiso. hadday naag tahay allahuma kfir lahaa warxamhaa wacaafihaa waaye. nin hadduu yahay allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi, ilaahayow cafi wacfu canhu, caafim ay ka cafi xaggiisa. wa akrim nuzulahu, nusulkiisa iyo soo dhowayntiisii martiqaadkiisa allow karaamee. wa wasic u waasici madkhalahu, makaanu gelidiisa waa qabrige. wa aqsilhu bilmaa'i, ilaahayow biyo ku dhaq, iyo wasalji iyo baraf iyo walbaradi, biyo kaloo dembiga uga dhaq. wanaqqihi, ka nadiifi min alqataayaa, gafaska iyo dembiyaalka, kamaa naqayta thawba alabyada min addanasi, saad uga nadiifisay ama loogaga nadiifiyo marada cad wasaqda. marada cad marayaasha kale lamid ma aha. wasaqdii gaarta qofku waa ku xishoodaa, banaanka lama soo baxo, waa isla markii waa iska dhaqaa. allow dembiga saasoo kale uga dhig waayo. waabdilhu ugu bedel daaran daar khayran min daarihi, daartiisa ka khayr badan. wa ahlan ehel khayran min ahli, ehelkiisa ka khayr badan. wa zawjan xaas khayran ka khayr badan min zawjihi, xaaskiisa. waadqilhu